السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا له قارئ كسر هذا فيديو عصب إن شاء الله. ولا له قارئ ما توحن كورم إن دوله رادو ما فيديو كانوا كسب سين هاي هو يوين كهيست المها وكسر هاي هذا الكا كنا الوضع ماذا عندك إن هاي سويدن أو يوروبا جودهان إن لبتهاي المها مركي وكسر هذا الكا وضع ماذا عن شوقنا حلو باهي هو يدون كبر ركسنته وحيالها ilmaha la iskaga qaatay ka mid tahay ilmahaada haddii aad wax ka duwan aad yacni wax normaal aan ahayn oo ilmaha kale aynan lahayn haddaad ku aragto xitaa haddaad ilmo hore dhalin dad dhakhtar baa jira dhakhtarkaad ula tegi kartaa ilmahan waad fahmi kartaa inuunan wax si ka yihiin ama hadalku kasoo daahay dhibaato waxyaalo badan baa wadamadan jira ilmaha inuu hadalka kasoo daaho keenahaya marka insha Allah waxyaalaha koobaad ee ilmaha la iskaga qaato ay ku soo marsoodaan wadamadan aan deganay ka mid tahay adoo lagu soo maray lagu leeyahay qeyr mas'uul baa tahay ilmihii baa dayacday ilmihii baa dhakhtar geynin ilmihii baad maaragtay ku dhowratay isagoo cudur hayo oo doodi iyo waxaan maxaa la dhahay autism iyo ilmaha waxyaalaha cuduradan ilmaha ku dhaca oo wadamadan ay ku badan yihiin ma aqaan wadankeena ma anigu kuma ba arki jirnay dhakhtar la'aanta ahayd inaan la aqoonin in kala ma garanayo marka marsiyadaas oo kale ilmaha way uga qaataan ilmaha la dayaco la dilayna way uga qaataan marka insha Allah bal gabadhan dhibaatada ay martay dulaha reer dhageysta oo way Soomaaliyeed wadanka Sweden ilma laga qaatay wadanka Jarmalka ilmihii labaad laga qaatay aad iskaga rafaadsan dhageysta bal insha Allah isbaa ku furmay dabadeetan cunugeygana muu hadli jirin wuxuu qabay autism buu ahaa iyaguna amtidii baa wareerisay oo mataqaana dadka iskaga mashquulan waa garanaysaan waxay dhaheen maayarkan muxuu la aamusay dee aniguna hadal kumaan dhajin haddaa awoodana sanad isagoo jiraan kaga hadalsiin lahaa marka waxaa dhacday waxaa la geeyey dhakhtar baa laygu dhahay kaalay dhakhtar waxaa jira la seexdo sida guri camal aad joogaysid dhowr week ilmahagaa lagu eegayaa baa lagu dhahay dabeetana meeshii anagoo joogna anigana stress baa iirahayo waxaa dhacday marka cunugeyga maalin ana waxaa lay arki dhahayo war naga fariiso dee waa dhirbaax dee Soomaali baan nahay ilaahay bana dilayay qof kasta ilmihiisa uu dhirbaaxayo wuxuu ku sameeyaa taasna kale hadii ceebtaan uma garanayo intii markii laygu arkay waxaa laygu dhahay ma hayn kartid ilmaayarka adiga u baahan qofku caawiyo mataqaanaa ilmaayarka mas'uuliyadiisa iminka ma qaadi kartid intaa ka dhalays anaga ku hayna markaa dhishid kadibna ku siinayna sidii markii layga qaaday anugu waa moral dilaacay waa qaracno waxaas dhahay kan kale adoo aragyaa laga qaadan waa iskaga soo cararay Swiss-kaas ka dhiibay saas darteed baa layga qaaday wiilkayga weyn Swiss-ka markaa tay kadibna waan dhalay campaan joogay campka anoo jooga waxay soo dhacday cunugayga maan arag 2 bilood ku dhawaad deetana waan u xiisay inaan arko waa qasab ilmahayga ilan asagana waan dhalay mugtaa anoo cunugayga raba inaan arko baa maxkamadii soo dhacdayo balanta maxkamadana ma jiri karin haddaan jiro waxaa noqonaya haddii qof dambiilaa because wax kastoo la go'aaminaa dhakada lagaa saaraya haddaa goysid maxkamad waa taqaanaa beelata waan soo baxay oo waxaan u imiyey ninka ilmahayga dhalaasna Swiss-ku joogay marka oo imaad waxaan ku iraahday walaal ilmahaaga yarka ah ii sii hay waa kana kayga la soo booqanaya maxkamadeedina waa tagaya balmahayga waxaa Jarmalku sii qaadan lahayd kan yar hadda Jarmalka geeyeen waa laga qaadan lahaa ma garanaysaa sidii baa kusoo tagayo Jarmalka markaa imaaday cunugayga baan soo booqday maalinta ku xigta maxkamadii baa tagay maxkamadii markaa tagay guriga ku laabtay anoo meesha fadhiya waxay soo wacay yugana amtidii Swiss-ka waxay ugu dhaheen cunugaagii reer baa la siiyey waxaa loo sii wadaa Switzerland meesha laga qaatay ilmaha labaad waxay ugu dhaheen waqtiga igu dhamaaday ma jecli wiilkayga inaan ka sheekeeyo garanaysaa waxay ugu dhaheen waqtiga igu dhamaaday iminka dad baa la siiyey ma hayn kartid laakiin haddaa rabtid waa ku tusayna oo soo wadamada waa dhibaato weeye waa imaaday waa iska tegay waa baxay Jarmalka waa ka tegay Swiss-ka markaa tagay waxaa ku dhahay ilmahaygiisii waxay ugu dhaheen ma ku siin karna sababtoo waa tuurtay أنا واحد كنا بتوري دبعت أيستي هذا تورا يجمل كم بس عرّي حاجة بس كجوجي لا الميجن واسكت لا وحاول ما حاجة حي بنجي ناحس ما دام كلي قاضي مركب بلام بايش وكوي هذا المكان إنه يجد يعني وقسم من تقبل أنت ما تشكرين وحنا نقول جرمال كأسرة هذا اللي وحنا نقول جودة أقل مسوية يعني ما ينكرتو
حسينينا أوكي وكنا إنا أركار وأدريسين حتى وصوب قنيا بقشدي أقلا هي قولي بقشدي ولي أقلا إمك وصوب أقلا فاهمسة لكن waxa awoodi waayay anuu ma shaqaysto lacagna ma haysto 400 euro qaata 400 kooda bisha waxa isoo dhacda 170 euro 170 euro ma waxaan ugu tagaa wiilkayga Swiss-ka jooga oo hadiyad ugu gala mise waxaan ugu tagaa kitchen mise adeeg baa ku gataa nafteeda ku biila waa garaway nafteedii waxba ma ahanba ani wax kasta ay ku dhaca waa kaysanaya laakiin labada ilmood waa u awoodi waayay maalinba midina wax u iibi maalinba midina u taga jarmalka anoo joogo cunugayga ma soo boqdo ma markii qaar sababtoo ah tigid ma haysto wax i garab taagana ma lahan aabayaashooda way nool yihiin ilmahayga laakiin aniga xaggayga way ka dhinteen aabayaasha Soomaaliyeed oo qara mas'uul meeshuu doona ha joogo sharciyuuna haysan maalin intuu isoo wacay imuu dhihin cunugayga yarkaasi yahay ka kalena anoo umula oo ogya ilmahayga layga soo qaaday oo kaam galay 27 beriba hal maalin waxa qaadan jiray 20 euro asaf ku galay gaad walaalahayga qaaliga ah insha Allah wad u jeedaan waxa la dhahaayay waad aragtaan inay hooyadaas aad iyo aad u rafaadsan tahay insha Allah waan sii wadanaynaa haduu yiraahdo waxa weeye wadanka ay hooyadu ilmaha ay lagaga qaatay labada wadan laga kala qaatay waa Jarmalka iyo Switzerland ma aha Sweden ma aha waa hooyo yar oo daayar sida aad aragtaan ba hal ilmo dhashay ilmihii bay waxba looga shakiyay dhakhtarkii baa la geeyay dhakhtarkii markii la geeyayna maxaa la dhihi jiray dhakhtarkii dhexdiisii bay wax ku dhufatay ilmihii bay dharbaaxadaasna dib lama ogolo waa ogtiin ma ogtahay sidaas markaa ay kuga dhacday dhibka kale uu ku dhacay sharciyuuna haysan maalin intuu isoo wacay imuu dhihin cunugayga yarkaasi yahay ka kalena anoo umula oo ogya ilmahayga layga soo qaaday oo kaam galay 27 beriba hal maalin waxa qaadan jiray 20 euro asaf ku galay gaaja iyo intuu isoo wacay iguma dhihin ma nooshahay ma dhimatay faagani muu gadin ilmahayga wuu diiday inuu isku qoro magaciisa maanta ma jeclay inaan ka sheekeeyo laakiin idinka ayuu kalifay noloshayna xagga uma soo istaagin inaan ka sheekeeyo ma garanaysaa waxaasoo dhibaato waa u adkeysanaya laakiin intaa ka badan ma awoodi inaan adkeysto haddii ceeb tahay inaan xagga maanta ka dhex qayliyo dhowaal iyo caawiyana ani agteeda ceeb kama aan because intaa waalanaa waxaa ii fiican soomaalidaas iyadoo caawiso garabka helo kolay tigidna ii gooyaan wax un inaa ka faa'iida xagga u imaaday ma garanaysaan waana ka xumaaya maanta inaa xaggaas ka dhex qayliyo mana doonin inaa hadhado laakiin qof kasta awood wuxuu igu caawin karo walaalayaal hay caawiyaan mar dambena hay weydiinin sababtoo ma jecel inaan ka sheekeeyo ilmahayga aabayaashoodna maanta wixii ka dambeeyay way dhinteen ma nool ilmahayga agoon wayaan sar qorax aba ilaa qalbigaaga ha qaboojiyo moodkaaga iskaga laabo waani barya qofka nabarkiisa maanta dhan fagaysan ka joojiya Soomaaliya qofka bilaada kama ficlan ma taqataa duruufiisa in laga maanta loo ka hadlo ficlan qofka haduu dhaw garab iyo halis garab in la siiyo wanaagsan oo toddobaadkii waan salaamayaa walaashii Cayso oo kuma sida bulshada Soomaaliya soo dhex gashay arrinkan hore aan u arkay hadda xasuustay wax taqataa walaada kala wax taqataa Soomaa ila biir dhahan adeerka قادة exactly يربع مدخل العزانو دايما بدنا أصحاب أكل أنا بس مدخل العزق أكو أقانو فمدخل هذا كله حيبرق ممكن مدخل هذا هو سوسي تيك توك عجا يلا بركعجا وهي سمعت جودا عاوي بيسحب فهمت سمع مركا أوكي وأكو يريد يربع ودري وصدري أو مدخل العزق أو إنشما كله شوجا أو دمدخل هذا واحد برتي أو شقيست أو صور كل واحد سكوف فلان أو عاون أو كل يستعجلها وحبوا بانتا ومسين لها دايرتي ما بسوا عي waxa uu jawaabtay maxaa la jiray yaa la barkiin soo si maxaa ahaydeen waa dhibaato jirto ma garanaysaa aniga dad badan baa isoo wacay ma jeclina ka sheekeeyo maalinka wixii markaas si daacada ugu sheegtid waxba kuma qabanayo wuxuu ku leeyahay ilaahay ha ku caawiyo waa ka xumaa waxaasna dii waa dhibsanaysaa mugta ma exactly feeling bad ogaa laakiin ani dhaynta mataqata dhaynta beesha jooga waa feeling markuu qofkii hadal feeling Somali gamer markuu ka bato koolka badan aad aragto qofkii ma laga yaabo koolka badan ka ku caawinay dhageyso ka ku caawinay kula raba xataa waxa u maleynaa isla iigiba u maleynaa oo kaaraba isla iiga ogaada ee halka ka baxaya ma garatay exactly taas xasada dadka koolka ku badan gawda baasenka qofka dhib khalad lama saari karo ما أنا قلت أنت بتقطع العزك واحد إنه سمعنا قبل نمبر كنا وصل سيجا دين
maadaama anagu ka tirsanaa garanaysa diswili waa garanaysaa mataqaata alcize kamuunka dhalinta afaan soomaa oo mataqaata ururna way afaan soomaa dhalinyar ah soomaaliyeed way kamuunka mataqaata alcize jaaliyadna way yihiin afaan soomaa saddex dhan way ku kooban yihiin marka jaaliyadna way ahaayeen marka kuwada ugu sore la hadlay kabacdi de mataqaata waxaa ku yidhi gabadha wakaas la xiriirinayo way soo waceen waxay dhaheen maalinta celiniyo gabadha su-aalkii gabadha saasantay walaashii dhimala wixii dhacay way dhaceen saxaabeen way dhaceen insha allah xaddi taa baa la joogaa insha allah xataa ana garabkaaga ahaan doonaa insha allah 500 oo qof oo daawanaya tabil cali garab lagama waayin doono insha allah xataa ana dhayantina insha allah marna kugu soo xiri doonaa wax lama weyn doonto insha allah walaashi okay إلهي قعاوي إلهي قعاوي ولا لا يبقى لي داون دون إن شاء الله qof laasimo ku caawin gabadhi qofku markuu uu soo bandhigo dhaawiciisa dhowr marna ay dhahaan intee maxaa kugu dhacay sidee sidaas caawitaan baad ka helaysaa u sheeg haddana midkan kale u sheeg ka aamusaya marka hadhowtan ultimi niyadii baa ka jabayso kii soo waco lacalla oo runta ahaaba waxay leedahay walaalahay idaalad ma garatay idaalad waa runta niyadii uma haysid waxaa taagantaa meeqo qof